barnaamijka dabagalka degmooyinka waxaan isbuucan ku dul istaagi doonaa degmada Warta Nabadda oo ah degmada uu ku yaalo aqalka looga arrimiyo Soomaaliya. Degmada Warta Nabadda oo horey loogu aqoon jiray Wardhiigley waxaa degmo ahaan loo aqoonsaday sanadkii 1972 waxa ay qayb ahaan ku taallaa afarta qaybood ee gobolka Banaadir qaybtiisa bartamaha. waxa ay xuduud la leedahay 6 degmo oo kala ah Xamarweyne, Boondheere, Holwadaag, Daynile, Waaberi iyo Yaaqshid. degmadu waxa ay ka kooban tahay 5 waaxood oo kala ah General Daawud, Hantiwadaag, Horseed, Barwaaqo iyo Xamar Bile. goobaha la garan og yahay ee degmada waxaa ka mid ah madaxtooyada Soomaaliya, tiyaatarka qaranka, iskuulka 15 May, Stadium Muqdisho, xarunta xisbiga, masaajidka Cabdalla Cawareere, xerta Sheekh Aadan Dheere, iskuulka Maxamuud Xarbi, xerta Sheekh Cali Muumin, Xamar Bile, isbitaal Al-Xayaat, isgoyska Falaronsa, isgoyska Aadan Cadde, Geed Jacayl, isgoyska Siinaay, Baar Ayaan, Radio Muqdisho, wakaalada biyaha, Hotel Daamey, isgoyska Cali Kamiin, maqaayadda Al Nasri, xere Cuuryaamiinta iyo garoonka Muqdisho. xaafadaha degmada waxaa ka mid ah Cali Kamiin, Buulo Absuge, Geed Jacayl, Barxadda, Buur Hindi, Buulo Hoose, Xamar Jadiid, Xamar Bile, Laba Dhagax iyo Siinaay. degmada Warta Nabadda waxaa dhinacyada ka mara 2 jid oo waaweyn oo kala ah Maka Al-Mukarrama iyo Warshadaha, waxaana dhex mara degmada 2 kale oo waaweyn oo kala ah Sodonka iyo Wadnaha. waxay leedahay hal wado oo kaliya marka laga reebo wadooyinka ay wadaagaan degmooyinka kale, waana wadada Falaronsa ee ka soo baxda tiyaatarka qaranka, tagtana isgoyska Ifka Xalane. degmada oo markeedii hore la oran jiray Wardhiigley waxaa Warta Nabadda loo bixiyay 7 bishii Abriil 2012 xilligii dawladdii ku meel gaarka ahayd ee Sheekh Shariif Sheekh Axmed. waa degmo qadiimi ah oo ku caanbaxday halhayska ah Wardhiigley wasaarad waaye, inta kale wakaalad waaye. dadka ku nool degmada Warta Nabadda waxay caan ku yihiin ciyaarista kubadda cagta, waxaana ku yaala garoomo ay ka mid yihiin Muqdisho Stadium iyo Minishibiyo. degmadu waxay leedahay 4 MCH, waaxda Barwaaqo waxaa ku yaala 2 MCH, waaxda Hantiwadaag waxaa ku yaala 1 MCH, midka kalena waxa uu ku yaalaa waaxda General Daawud, wayna shaqeeyaan dhammaantood sida dabagalku soo ogaaday. iskuulka 15 May ayaa albaabada la isugu dhuftay kadib markii khilaaf uu soo kala dhex galay dawladaha Soomaaliya iyo Masar, oo dawladda Masar ay gacanta ku hayn jirtay iskuulkaasi. macallimiin Masaari ah ayaa ardayda siin jiray waxbarasho bilaash ah. iskuulka hoose dhexe ee Wardhiigley waxaa degan ciidamo oo ma shaqeeyo, halka iskuulkii Hantiwadaag oo burburkii kadib u shaqayn jiray qaab gaar ah hadda uu gacanta u galay dawladda ama dawladdu ay dib ula wareegtay. iskuulka Maxamuud Xarbi isagana waxaa ku shaqaysta shakhsiyaad gaar ah oo dib uguma soo laaban gacanta dawladda. waxaa ka aflaxay dad badan, wuxuuna ka mid yahay iskuullada ugu tayada wanaagsan Muqdisho. gudoomiyaha degmada waa Seynab Maxamuud Warsame oo loo yaqaan Seynab Xaabsey. waxa ay ka mid tahay tiro gudoomiyaal degmo oo ku jooga magacaabis rasmi ah oo wasaaradda arrimaha gudaha ah, halka inta badan gudoomiyaasha degmooyinka ay kaliya soo magacaabeen duqii hore ee Muqdisho, Allah u naxariistay Injineer Diriisow, iyo midka hadda jooga ee Cumar Finish. Seynab hore ugama soo shaqeyn maamul dawlad hoose, waxayna degmada uga timid wasaaradda dastuurka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. waxaa degmada geeyay wasiirkii hore ee wasaaradda dastuurka, Allah u naxariistay Cabdiraxmaan Xoos Jibriil, waxayna degan tahay degmada ay ka arrimiso. qarax ka dhacay 24 Julaay 2019 xarunta dawladda hoose ee Xamar ayaa dhaawac ka soo gaaray, waxaana caafimaad ahaan loogu qaaday dalka Qatar. waxa ay dalka dib ugu soo laabatay 20 bishii Oktoobar 2019. dabagalka oo xiriir la sameeyay dadka deegaanka ayay u xaqiijiyeen in Seynab hadda iyo ka hor dhaawaceedii aysan wax xiriir wanaagsan ah la lahayn dadka ku nool degmada ay gudoomiyaha ka tahay, ka warqab iska daayay. haweenaydan aadka isaga ilaalisa dadka degmada ee maamulka ay u tahay ayaa ka badbaaday 3 qarax oo lala damacsanaa in lagu waxyeeleeyo nafteeda, taas oo kor u qaaday kalsooni la'aanta shakhsiyadeed ee iyada kala dhaxaysa reer Wardhiigley oo gudoomiye ay u tahay. Seynab Xaabsey waxay aaminsan tahay inaan laga qaadi karin xilka degmada Warta Nabadda oo xitaa aan lagu dhiiran karin xilka xayuubin, maadaama sida ay aaminsan tahay u dhaawacantay cadowtooyo ka bilaabatay xilka ay ka hayso degmada, iyo inay tahay haweeney firfircoon marka laga hadlayo shaqada gobolka iyo degmooyinka isku xirkooda. gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda waa Cabdirashiid Ismaaciil Maxamuud, wuxuu degmada joogaa muddo 7 sano ah. ma jirin maamul dawlad hoose oo uu la soo shaqeeyay Warta Nabadda ka hor. waxaa mar hore booskiisa loo soo magacaabay Maxamed Deeq Gaafow, balse maamulka degmada ayaa codsaday in uu la sii shaqeeyo Cabdirashiid, taas oo keentay in Gaafow loo wareejiyo degmada Yaaqshid, walow dhowaan baahinteennii barnaamijka Yaaqshid kadib laga qaaday xilkii uu degmadaasi ka hayay. Cabdirashiid ayaa ka mid ah mas'uuliyiinta aan ku hoyan degmada ay ka taliyaan, wuxuuna degan yahay degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir. gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmadu waa Faarax Axmed Cirro,
ma jirto maamul dowlad hoose oo uu la soo shaqeeyey wuxuuna ka yimid xoogga wadaniyiinta oo u qaabilsanaa degmada warta nabadda wuxuu sidoo kale la shaqeeyey shirkadda korontada Beko markii loo magacaabayay xilka degmada uu ka hayo wuxuu degan yahay meel ka baxsan degmada uu xilka ka hayo xarunta degmada oo hore ugu burburtay qarax lala eegtay weli lama furin kowdii bishan Luuliyo ayay ugu dhaweyd in la furo laakiin biyo ayaa xiray jidkii laga gali lahaa xarunta waxaana lagu waday in madaxweyne Farmaajo uu xariga ka jaro laakiin madaxweynaha biyaha ayaa u diiday xarunta inuu tago xogo lagu kalsoon yahay oo aan helnay ayaa waxa ay sheegayaan in degmada mashruuca biyaha looga saarayo aageeda ay ku baxday lacag dhan $80,000 laakiin wax isdabamarin iyo si xun u xoolaysi dad gaar ah ay jeebka ugu riteen ayaa sababtay in degmadu noqoto mid aan biyaha laga saarin xarig jarkii madaxweynuhu ula damacsanaana dib ay uga dhacdo dhammaan jidadka soo gala xarunta degmada oo filla Soomaaliya u jira wax ka yar kiiloomitir waa biyo degeen qaarkood ayaa xiran in muddo ah waxaa burbursan jidka dhinaca ka mara iyo midka hareerta ka mara degmada taas oo shacabka degmada kol hore sheegeen in aysan jirin xitaa meel ay meydka mariyaan xirnaashaha jidadka aawadood nus kiiloomitir meel u jirta madaxtooyada Soomaaliya oo saan u burbursan oo aan meed laga bixin karin waa iska bedelaynaa warta nabadda hadda waxaan u eegnahay oo magaca hadda aan qaadano waxay tahay warta dhiiqada hadda waa ka baxaynaa wardhiigleedii hore u laabaynaa wardhiigleedii hore waan afarta degmo magaalada Muqdisho ugu horeeyay madaxtooyada ku dhex taalo raad Muqdisho ku yaalo isbartibada ku taalo meelaha ugu caansan ku yaala tiyaatarkii maantana ma muuqato in ay tahay degmo in la isku sheegano waa fiican tahay ninka degmo hordhiigle arko degmo kale oo arko waxaan leeyahay in dhammaale kaas tilmaam wax ku raadshay waxaan codsanaynaa laamiga ugu muhiimsan degmo hordhiigle degmada xaafadeena gashay ilaa geed jaceyl waa burbursanta dhibaataan ku jirnaa weli lama dhisin jidkan maamulka gobolka oo ku soo baxay cabashada shacabkan ayaa carro ama ciid ku shubay waxa qaaday biyihii roobka oo xaalku waa sidii hore iyo ka daran shacabka degmada markii ay garab ka waayeen maamulka degmada iyo kan gobolka si looga dhisay jidkan ayay si isku tashi ah waxa ay ku sameeyeen wadada aadan cadde oo gasha madaxtooyada oo xirnayd muddo fog garoonka fustalka burburkii degmada ka hor waxaa laga karin jiray dhalinyarada ku ciyaarta oo kala ciyaari jiray xilliyada kala ah subaxii hore galabkii iyo habeenkii waxaana laga qaadan jiray lacaga baad ah oo askarta ilaalisa la siin jiray laba motor oo loo isticmaali jiray inay koronto siiyaan xarunta degmada balse laga maarmay ayaa mid kamid ah waxa qaadatay agaasimihii hore ee madaxtooyada Soomaaliya Aamino Siciid oo eedo u ah Zeynab Xaabsay gudoomiyaha degmada warta nabadda halka midkii kale uu qaatay markii horeysay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Mongab waxaa xogo hoose aan ku helnay in motorka ay qaadatay Aamino laga iibiyay mid kamid ah hoteelada Muqdisho oo hadda si bareefada uu isticmaalo layrarka cadceedda ku shaqeeya ee jidka Soddonka ayaa qaarkood la qarxiyay qaar kalena dayactir la'aan ayay u dameen kuwa jidka wadnaha iyo Soddonka hormara ayaa iyaguna waxa ay yihiin kuwa aan inta badan shaqeyn laakiin qaarkood ayaa dadka u iftiima jidadka hormara xarunta degmada iyo saldhigga booliiska ee degmada warta nabadda ayaa ah kuwa burbursan walow carro lagu shubay markii uu marayay madaxweyne Farmaajo ee xariga uu ka jarayay stadium Muqdisho si ammaan darro halkaas ka dhaci lahayd looga baaqsado taliyaha booliska degmadu waa laba xidig leh Xuseen Cadceed Cismaan wuxuu booliska kaga yimid nabad sugidda wuxuuna degan yahay degmada uu amnigeeda mas'uulka ka yahay amniga degmada ayaa ah mid aan wanaagsanayn dharaar cad iyo habeenba ayaa dadka looga dhacaa taleefannada qaarkood ayaa naftooda la dhaafiyaa iyadoo aysan jirin cid looga cabsi qabo in ay ka daba tagto falalka dhaca laakiin dadkaas waxay ahayn dad tuugo ah weysan markii amaanin waxa la kulmay arrin aad murug ah u leh wiil ayaa inta guriga markay soo galeen waxay baarana way ka waayeen wiil ay dileen wiilkaasna markii si qabdir ay u dileen tooriyaan ku dileen tuugada ay badan yihiin haddii dhacdo in macnaha maalintii wax la dhacaayo habeenkii wax la dhacaayo marka in guriga la iskugu yimaado marka xaalad meesha ugu xunaada mar haddii guriga la iskugu soo jabsanayo meesha ugu xunay xitaa waxaad dareemaysaa marka qaar waxaa arkaysaa in guri la jibiyey oo albaabkiisa tuurihiisa wixiisana haddaa fiiriso caafimaad qabaan gurigiina waa la galay xal dhibaa ka dhaca lagu leeyahay marka farsamo oo ala yaabto la yimaadeen nimanka isgoyska geed jaceyl oo filla Soomaaliya iyo xarunta degmada u jira wax ka yar 2 kiiloomitir ahna halka laga sugo ammaanka xarunta degmada waxaa dhawaan lagu dilay askar ka tirsan booliiska Soomaaliya taasoo muujinaysa heerka amni darro ee ka taagan aaga madaxtooyada waaxda barwaaqo oo ah mid kamid ah halka ugu amniga xun degmada warta nabadda ayaa ah meel lagu dhaco mootooyinka taliyaha degmada u qaabilsan waaxdaas oo magaciisa la kugu sheegay Cabdicasiis ayay dadka deegaanku soo wariyeen in wada shaqayn ay ku tuhunsan yihiin inay kala dhaxayso burcadda dhacda mootooyinka iyo wixii la mid ah
maadaama uu dhowr jeer xabsiga ka sii daayey dad loo soo qabtay falal amni darro iyo dhac laga geystay degmada gaar ahaan waaxdaasi. waxaa xaafadaha qaarkood dadka shacabka ah ugu gala dad ku labisan dharka ciidanka dowladda kuwaas oo u sheegaya in ay samaynayaan baaritaan balse waxay ka qaataan hantidooda markii ay dadka guryahooda ay bannaanka uga soo saaraan. sidoo kale waxaa adag in xaafadaha qaar markii gabalku dhaco laga soo baxo amni darro jirta aawadeed. suuqyada degmada oo ay ka mid yihiin xamar jadiid iyo suuqa siinaay canshuurta laga qaado sooma dhaafto askarta ururisa. mararka qaarna waxay askartu u jaraan ganacsatada boono ay ku qoran tahay lacagta ay ka qaadeen mid ka yar si ay uga faa'iidaystaan ama wax isdabamarin ayaa halkaas ku jirta. guri waxaa jira weyn oo la dhaho sarta xaaji cali geeddi oo ku yaala Siinay. sarta xaaji cali geeddi horteeda ayaa waxaa la yidhi gabar nima ay sheegay cuur gabar ah waxay ku ibisay miisa waxaa u saaray sigaara u saaray dhowr baakoo sigaara u saaray niman minishiibi ay yimid waxay dhaheen canshuurkeen 2,000 oo shilin ka qaadeen. gabadhu meeshay sigaarka miiskay ku iibinayso miiska ku xiga gabar ayaa waxay ku iibinaysaa shaah 2,000 oo gabadha sigaarka canshuur uga qaadeen ay gabadhi shaah iibinaysa 2 koob shaah uga iibsadeen. horta canshuurta Soomaaliya laga qaado dadka Soomaaliya laga qaado horta waa saas waa canshuurtaas laga qaaday gabdhahaas sigaarka iyo shaaha ku hor iibinaya guriga xaaji cali geeddi shadoor oo ku yaala Siinay. horta waa saas hadda saas waa degmada oo ay ku taalo xarunta looga arrimiyo guud ahaan Soomaaliya waxa isugu darsantay jidadkii oo burbursan xaruntii degmada oo gacan ku haynteeda ay la wareegeen biyo dhaafiyay hareeraheeda maamulkii degmada oo ka gaabiyay oo adeegida shacabka canshuurtii oo laga qaado dadka degmada amnigii oo faraha ka baxay iyo kalsoonida shacabka iyo maamulka oo aad u hooseysa. Cali Aadan Muumin barnaamijka dabagalka